Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kulan wacan oo wanaagsan asxaabtaan jecelnahay oo kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Kooxda kubadda cagta Barcelona oo gurigeeda ku burburisay Levante Ansu Fati oo isku qoray taariikhda La Liga iyo Barca oo weli baacsanaysa Real Madrid. Barca ayaa jawaab culus ka bixisay guuldaradii kasoo gaartay Valencia isbuucii ugu dambeeyay kadib markii ay 2-1 ku xasuuqeen kooxda Levante oo marti ku ahayd garoonka Nou Camp. 17 jirka Ansu Fati ayaa isku qoray mar kale buugga taariikhda horyaalka La Liga isagoo noqday laacibkii ugu da'da yaraa ee 2 gool ka dhaliyay taariikhda horyaalka La Liga halka Lionel Messi uu caawiye ka ahaa 2 gool ee xidiga da'da yar. BK ayaa jaale qaatay wuxuuna seegi doonaa kulanka xiga. Si kastaba ha ahaatee Barcelona ayaa Khamiista la ciyaari doonta kooxda Athletic Bilbao waana Copa del Rey wareegiisa 8-maadka. guud ahaan muuqaalkii koobnaa aan ku eegaynay Barca oo wadada guulaha kusoo laabatay waanaga intaa dib inta kulmi doono waa saaxiibkiin Ismaaciil Saciid Fadlan leh.